isduwaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland ee gobolka Cayn Cabdulle Axmed Rowte iyo qaar ka mid ah bahda caafimaadka oo hogaaminaya ayaa agab caafimaad oo iskugu jira daawooyin sariiro waxa ay gaarsiiyeen MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Meegagle oo dhaca waqooyiga magaalada Buuhoodle una jira ilaa 45 kiiloomitir waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo ka warbixiyay agabkan caafimaadka ay gaarsiiyeen xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Meegagle isduwaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland ee gobolka Cayn ayadoona baahi weyn loo qabay agabkan caafimaad ee la gaarsiiyay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Meegagle degmada Meegagle magaalada Meegagle oo qiyaastii 30 kiiloomitir xagga waqooyi kaga beegan magaalada madaxda gobolka Cayn ee Buuhoodle xaruntii waxaan joognaa caafimaadka anaga iyo madaxdii iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii deegaanka maanta halkan waxaan soo gaarsiin oo kuwa patientka ama qofka xanuunsan lagu aasas gareeyo iyo xoogaa daawo ah waxaan rajaynaynaa inaan soo wadi doono sidoo kale socdaalkaygu wuxuu daaraa sidii aan ugu kurgeli lahayn bal waqtigan biyo la'aanta iyo xaaladda nadaafadeed ee deegaanka biyaha la cabayay sida ay yihiin runtii wacyigelin fiican waa ka sameynay oo ilaa ceelasha waa soo booqanay waxa ugu baaqayaa guud ahaan qurba joogta deegaanka ka soo jeeda iyo Soomaaliya oo dhan iyo gobolka Caynba meel kasta la joogo hay'adaha iyo dawladda Puntland in xaruntan Meegagle oo runtii markii hore si iska wax u qabso ah ku bilaabatay markii dambena qaybo kamid ah madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland ku soo deeqay oo ku soo daray ilaa haddana qabya in la soo dhameystiro insha Allah waxaan sidoo kale ugu baaqayaa cid kasta oo humanitarianka ka shaqeysa in deegaanadan laga soo caawiyo biyaha oo runtii abaartu aad bay u saameysay biyuhuna aad bay tabardaran yihiin meelaha qaybtooda aan soo aragnay waxaan aragnay ceelal aan binaysnayn oo biyihii la soo qaatay lagu sii shubanayo marka dadka waxaa loo baahan in laga soo caawiyo sidii ay u heli lahayn weel biyaha lagu kaydsado marka ugu horeysa maanta waxaan soo booqanay magaalada Meegagle taas oo aanu keenay xoogaa agab ah ma badna laakiin waa waxyaalo badan oo loo baahan yahay in lagu askareeyo xoogaa dawo ah waxaan kala qiimeyn ku sameeyay xaaladda caafimaad xaaladda deegaan xaaladda nololeed iyo tanbiyood nooc walba alxamdulillah indhayn badan aan soo aragnay waxaan ogaanay baahiyo badan inay jiraan ay ka jiraan xagga caafimaadka xagga nolosha biyaha hata waxbarashada hata dhan walbaba marka waxaan ugu baaqi lahaa bulshada ka soo jeeda ee qurba joogta ee deegaanka ka soo jeeda in ay sameeyaan horukac iyagoo eegaya dhinacyo badan oo ay ka jirto baahiyo ay ka jiraan anaguna aan la barbar taaganahay wixii awoodayada ah wixii aan anagu qaban kari weyneen aan doonayna inay nala kaashadaan aan la kaashana ayaga oo ay naga caawiyaan isla kale barbar taagaan dhanka kale waxa ayaguna halka ka hadlay oo soo dhaweeyay agabkan caafimaadka ee la soo gaarsiiyay xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Meegagle qaar kamid ah dadka ku dhaqan deegaanka Meegagle oo sheegay in ay baahi weyn u qabeen waxaan ugu soo booqday laguna soo kordhiyay agab caafimaad bahda caafimaadka ee gobolka Cayn iyaga sheegay agabka naloo keenay iyo dawo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid kastoo arrintan ka soo qayb qaadatay gaar ahaan waxaanu sii salaamaynaa madaxweyne ku-xigeenka oo runtii dadaal badan geliyey mid dambana aanu ka filayno waanuna qaadanay arrimihii dhammaan wacyigelinadii iyo baahiyihii jirayna waxaa ka hadlay bahda caafimaadka oo arkay marka cid kasta oo deegaankan ka soo jeeda baahida Ilaahay baa dabooli kara laakiin wixii ay qaban karaan waa deegaan weli baahidii iyo abaarihii dadka keenay weli ay ka sii muuqdaan waxay noo keeneen sariiro aan aad ugu baahnayn oo dadka kici waayay iyo umulaha aan kaga umulin aan baahi ugu qabnay daawooyin kaalmaatiya oo aan aad ugu baahnayn waanu mahad celinaa dhalinyarada isku duwaha gobolka Cayneed aad baan ugu mahad celinaa iyo dhalinyaradiisa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa nasiiyay Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle.